Soomaaliya waxaa jooga wasiirayaal. Soomaaliya waxaa jooga xildhibaanayaal. Soomaaliya waxaa jooga aqoon-yahano. War intaa biriga ma keeni waayeen xal aan Soomaaliya u ahayn dagaal military. Sababtoo ah dagaal kastoo dhaca dadkan unbaa ku halaagsama. Marka Soomaaliya ma heli karaan miya xal aan ahayn dagaal military. Dhagayste, adigu ma tahay ama ma gaartay xilliga aad fikiri lahayd qaangaarnimadu? Ma heli kartaa xal aan Soomaaliya u ahayn dagaal military? Waxaa kaga sii yaab daran, waxaa joogta intaasoo mas'uula, ra'iisul wasaareyaal, xildhibaano, aqoon-yahan, madaxweyneyaalo. Intaasoo saa u waaweyn kursi unbay isaga fadhiyaan mooyaane xal aan military ahayn dalka uma hayaan. Marka haddii aad tahay dhagaystay muwaadin Soomaaliyeed oo qaangaara, maxaad xal u aragtaa aan dagaal military ahayn oo dalkan iyo dadkan iyo diinteynaba ay ku badbaadi karaan?